أري حس شيخ دول مسيح دونا حس شيخ دول مسيحنا دولة الصومالية مدحول لها دول مسيحنا وحشيق عن كوكا سر مجرى كل قد لشيكه كوي مدل لشيكه هذا وبدستي دبكن عذا وضع إلهي وحلنا هاي ومدها كعقبته مونجابو حويها إلهي أكو دارشة طبعاً يدور تكنيكا هاد علي أجرتي متان عبد الله وحو كاجرا بني سبا شغله وحو كاجرا وقوي odayaasha dhaqanka mataan cabdulle ee beesha abgel ayaa iyaga oo careysan waxa ay si kale looga hadleen arrin ay sheegeen inay tahay mid cadaalad darro ah oo ka dhan ah shacabka masaakiinta ah iyo agoonta deegaanka cabashadan oo si gaar ah loogu jeediyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir iyo shakhsiyaad kale oo ku eedeysan inay ku lug leeyihiin dhul la isku dayayo in sifo sharci darro ah lagu hantiyo odayaashan ayaa tilmaamay in dhulka laga dhagax dhigay waxa lagu magacaabo New Muqdisho uu yahay hanti ay leeyihiin agoon iyo dad masaakiin ah balse magac been ah oo la sheegay Hawaii-na lagu qariyay halka xaqiiqduna tahay Hawaii ilaa iyo Bashaqle uu yahay dhul mataan Cabdulle sidaas darteedna aan cid gaar ah loo sheegi karin waxa ay ku baaqeen cid kasta oo isku dayda inay ku takrifasho dhulkan ha noqoto madaxweyne gudoomiye iyo shirkado ganacsi ama shakhsiyaadka kaleba ay ka digtoonaadaan talaabo kasta oo dhaabici karta xuquuqda dadka danta yar waxa uga dacwoohayna walaalaheena beesha wacaysle wax garadkooda ha ugu horeeyo boqor Cabdullaahi Geedi Sadoor dacwadeena agtaan ka dhigaynaa xasan sheekh waa madaxweyne qaran kuma haysano dawladda kuma haysano wax siyaasad kale oo ku haysan haba yaraatee ma jirto balse laakiin timirta hore dab loo waay oo maanta dhibaatada ka taagan xamar waa dhul oo mataan Cabdulle dhiibay waay ayaa maanta la isku dhibaateeno marka mid kale oo asana 10 sano kadib la isku dhibaateey ma dhiibayna ya dhul kale oo birita hadana lagu dhibaateey ummadda islaameed ma dhiibayna dad wadankan ku soo qaxaya dhulkii ay dagayna lagu dhibay dawladda waxa uga aadan haday dhulka dawladda u baahan tahay inay dadkan meel dejiso ayda dawladda madaxweynaha asaa u dhaartay marka walaalayaalow waxa jira wax la soo koobi kara ma aha maxay Hawaii iyo Bashaqle dada iskale waana nool yihiin intay nool yihiin xasan waa hadlayaan waxaan ka rabnaa maxay Hawaii iyo Bashaqle faraha kala bax hadii Allah haduu Allah faraha kala bax maxaa jira xamar danti guudo Soomaaliyeed mudbirkaan la duuliyaa qaadatay haddana maxay Hawaii noogu timide xasan oo ka yeelay ma doono insha Allah ninka leeyahay Mugabow waa ku naqaan waxa tahay waa ku naqaan Soomaalina waa ku taqaan annagana waa ku kaseynaa waxa tahay nin dagaal ooge hadeed waxa tagta meesha leeyahay war gobolka Banaadir lagu magacaabay maxaa ka jirisay meesha leeyahay magaceed muxuu ahaay qayl weyne iyo hubkaan oo soo banaan dhigayso oo meesha la leeyahay magaceed muxuu ahaay xalule hubkaan oo ku soo banaan dhigtay Mugabow wuxuu yahay Ilaahay aan kugu dhaarshay 12 tiknika haad cili u jartay mataan Cabdulle wuxuu ka jira bani saba shaqle wuxuu ka jira waqooyi diinla dumar wuxuu ka jira waqooyi duuliye mataan haddana xabad ku wadaaho aad 36 nin hadda maqan tahay labada dhinac waxaad hubku u xireyso mataan Cabdulle waaye Mungab waa ku ognahay adeerkay oo bidaarta lahaay oo duqa magaalada Muqdisho laga dhigay ninka oo mucaaradka ku ahay anaga kamid ahay marka adaan gacanta ku galsho waxa ay gashay waxaan isdhahay war duuli iyo xasagaab oo inta soo sano iswadeen oo dhameeyaha isla oo hawsha asa afjaraa manaadayna cirkaysi marto hawsha hadaan dayo marka waxaan ka rabaa Mugabow anaga waxaan markii hore waxaan la shaqeyn jiray shafay carabi iyo bushi iyo wan badnayna hawshaas waa afjarnaa lahayn shaqeeyeen marka duq waxaan isleeyahay waa afjaraa haddaan fiirshana cirka uu sii marsiye odayaal meel gey warshaq gey xamar meelka luuq kala gey هذا راح Mugabow saas ka filmay ninka gaabna wallahi saas ka filmay marka hawshu waa ugu sii dheereysay walaalkeeyo hawshu waxaan ka rabaa inaan gaabiso
xasan sheekh muxuu dhagax dhigay haabay tahay inay maxay tahay inuu kala ogaado waa laga rabaa oo ogaalkiisa si fiican oo u shaqeeyo xamar dhulka ay dhiibeen mataan cabdulle oo maaragtay danguud loo siiyay dawladda asaga hadda gacanta ku wada dhigay xamar dhibaatada ka jirta hadda waa aragteen annaka u naqsamo doono danguud oo xamar ka dhacday oo aragnay oo saa aragtay oo yeeray xasan sheekh dhul ma sii doonaa xasan sheekh dhul ma sii haynaa dawladda Soomaaliya madax oo leeyahay dhul ma sii haynaa anuka mataan cabdulle nahay ma oongolin dhul mana noogu imaan doono dhibka xagga ka dhacana xasan sheekh aaba leedahay marka waxaan ka codsahaa ninka la yiraahdo wiilkayga Ismaana inuu ka naqdo dadkiisa la barakacayna inuu ogolaado raali kamihi aniga raali kamihi laakiin inuu usuna raali ka naqdo ma rabi waxa kale magaciisa waxa ahaay ninka la yiraahdo gudoomiye hore magaciisa Amir wuxuu ka xishooday oo magaciisa waxa ahaay oo ka xishooday walaalkeen Mungab waa ku kacay Amir in magaciisa waxa ahaay meeshaas oo baxo dhagax soo dhigo dhulka dadkiisa waa ka xishooyay walow oo magaciisa waxa oo sugan magaciisa waxa sida la rabo oo san ahayn oo nin la xukumo oo yahay caashiqo godku u horeeyay oo la yiraahdo hebel la yiraahdo ninka ceebo u dhintay horta waa ka rajeeyna maxal umada hoojisay umada ninka hoojina sideedaba waxa wanaagsan inuu ka hor dhaxo horta ilaahay horta umadan ha ka qabto maxaa yeelay shalay maxaa iyo haabay ana haabay ku dhashay hada haabay ku dhashay matalaada aa sheeganayso waa matalaad oo adiga mushaar soo siisay waa maana mid aniga shakhsiyaanteed ugu matashmaan ama xidhawaan ha noqdo ama dhaqan ha noqdo waa nin caloosh u shaqaysta oo caloosh shaqaysta iska oo waxa mushaarkaada fiirsanayo hadaa biri mushaar ka goyso waa ka soo horjeesanaya nin mushaar siyo loo soo jira waa wax la yaqaanaba ummad aniga dhibtay nama matalan hadaas leedahay way matalan dhaqan iyo siyaasad oo mataan oo ku mideysaya oo xashiq aan ku kaasan ma jiro kulligood dhashiika ku yimaadaan dhashiikii adeer u badisay dhibkan adaa wado ilaahay waxa leenahay ummadda ha ka qabto wax ka qeyr badan ummadan ala u keeno maxaylay annaga dad si la iska dhiciyo waa naqaana dad si la wal macbilo waa naqaana xashiqo raala naga ahaaw Mungab raala naga ahaaw sidada bana Mungab waxa leeyahay hal waraa ku leeyahay maalin lagu doortay ummadda ku soo salaantay kamid ahay kursigaana ku fadhidane waa kursi ay leeyihiin mataan cabdulle mataan wuxuu adeer u ahay El Umra adeer u ahay maanta mataan waa adeer beelay wuxuu ku adeer beelay El Umar Mungab markuu dhagax dhigay dhulkii mataan cabdulle shalay waxay dhahayeen injada dheeraata Eliya gooyo dhaheen waxa ogaana Eli iyo Mungab inay hal far yihiin waxaa muuqata in arrintani ay dhalisay caro iyo dareen xoogan oo ku wajahan sida ay dawladda u wajahday khilaafka dhul ee Maxay iyadoo shacabka deegaanka ay ballan qaadeen inay ka hortagi doonaan isku day kasta oo lagu boobayo hantidooda sharciyeed